marka sheekadoodii balan aan u guda galno macnaha xaaska ayaa hadashay marka ugu horeysa waxayna tiri gabadheena waa la uureeyay ninka marqaanka ayaday dhibay wallahi ya waa gabadhiisa ya wuxuu leeyahay ayaday dhibaysaa wallahi xaaska adiga ayaa u keenay dhibkaas dhan kulli ma garanayo waxay oga wada adiga u keenay macnaha malaha hadii qeyr masuulad noqotay oo gabadhu waad ogaan weyday miyay ka wada dabcan laga yaabo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha Soomaaliyeed aad baa idin salaamaya isku soo noqosho wanaagsan maalmahan waan kala maqnayn in muddo aba waxa iska jiray xogaa cajis ah marka alxamdulillah hadda waa dib aan soo laabtay soo dhawaada ilaahay meel walba dunida ka joogtaan maanta waa maalin qurux badan ilaahay caafimaadna siiyay marka taas wax lagu farxaa marka diyaad nagu cusub tahayna subscribe noo saar haddii aad nala sii joogtayna waa mahadsan tahay maanta dee maadaama in badan kala maqnayn xogaa yar sheekooyin oo iska yar kaftan ah yaan rabaa inaan idinla soo socodsiiyo sheekooyinkan intooda badan haddii la yidhaahdo nin saaxiibkay oo walaalkay ah oo Cabdiraxmaan dhahan maartay ka soo xigtay marka insha Allah dee isla socosho wanaagsan sheekada ugu horeysa ee maanta noo bilaamaysa waa sheeko funny ah oo wiil iyo awowgii dhaxmartay aad bay aanu iga qoslisay runtii markaan maartay aan akhristay aad iyo aad bay iga qoslisay sheekada ayaa ku bilaab macnaha waxa wiil yar ayaa guriga banaankiisa la fadhiyay awowgii markaas waxaa jidka soo maray macallinkii dugsiga u dhigay meesha wax kale ka soo socdo wiilkii yara ayaa awowgii ku yiri awowe dhoomo macallinkayga soo socdee awowgii uu leeyahay dhoomo macallinkayga soo socdo yiri marka caadi baa wiilkan yarka Fariid waa odaygii baa ku jawaabay dee adigu dhoomo adigu macallinkaagii yahay wiilkii yara kulaha maalin dhaweyd baan dugsiga ka maqnaa macallinkana waxaan ku dhahay awowahay baa dhintay tacsi baan ku maqnaa marka yacni maalin dhaweyd macna dugsiga u gambiyey markaasa wuxuu ku yiri dee awowgay baa maartay yaa dhinto tacsiba ku maqnaa marka haddii maanta uu loo imaado macnaha wiilkii iyo awowgii oo isla fadhiya dee waxay noqonaysaa in fashil bay ku noqonaysaa ka yarkaa dee berri waa la qaraacayaa haddii dugsiga ku laabto marka wuxuu yidhi dee inta waxaa dhicin ba awowa dhoomu dhahay dee duqi waa la kedoo soo taagan marka waa sheeko aan inaba caadiyeyn sheekadan kale iyadna funny ah aad baan iga qoslin runtii idinkana waxaan rajeynayaa idinka qoslin doonto isla socosho wanaagsan dee bariyahan xaq maartay subscribe-ka iyo xaq video-ga lama siiyo runtii aad iyo aad maartay aad noogu jiftaane dee horey dee noo sii wada insha Allah share comment like waxaas oo dhan dhiirigelintaanada waaye marka dee meel hoosaan joognaayo kor noo qaada asxaabta sharafta badan sheekadan kale ayadna funny ahayd funny yacni inaba caadi maahan hadda ka hor sheekada waxay noqonaysaa hadda ka hor ayaa sheekh khudbaynayay dhahay wadankii xumaanta iyo fasahaadka ayaa ku faaftay xitaa waxaa la gaaray heer dumarkii jirkooda ka ganacsadaan oo ay ku iibsadaan $5 $5 ee jirkooda ku iibsadaan mid ka mid ah dadkii khudbadda dhageysanayay ayaa dhahay maya sheekhow waa 15
والله والله وإيجا قصلي و15 المرة معناها يا وقالي وذا عمل ومد خطبة ديسنا يا رئيس داس شيخ محوك جوا مركا إلى أركض شيخ وحود يا سينا شيخي أيايري 15 كوا مركا أي كلا سيحنيس يا الحين شيخي ومركا كلا سيحنيس 15 كمعناه مركا كلي كاتيس معاش مركا سؤال ماشي كجرت يعني الشيخ siduu ku ogaa macnaha soo maxay hayday 15 inay tahay macnaha mid ku sax siduu ku ogaaday macnaha sheekh halkaas su'aal macnaha in la iska weydiiyo mudan yani ya 15 macnaha siduu ku ogaaday macnaha yar dhageystii wuxuu dhahay yani khudbada dhageysanay waa $5 sheekhna wuxuu yiri waa markay kula seexanayso macnaha in beerta lagu wada jiro macnaha ya inay noqonaysa marka ya dhageystaha iyo sheekh beerta isku jireen miya astaghfirullah alazim ilaahay naga kulli waa iska kaftan macnaha say ila tahay oo xeel iska soo qoray waay marka de wakaas ayadana sheekadaas halkaas ku eg tahay aad iyo aad aniga qoslaysa runtii sheeko kale qosl ayadana runaantii aniga aad iga qoslisay ayaan rabaa ayadana inaan idin soo gudbiday hal igu dulqaato hadii aan qoraalka dhaho sababtoo wax qoraal laga akhrinayo waa iska dhib badan yahay marka gabar gaari saarneyd iyo oday asna ciyaalka xaafadda asna gaariga soo fuulay macnaha ay ka turjumaysaa sheekadan waxa kala qabsada marka sheekada yaan idinka hor dhicina la socda oday ciyaalka xaafadda ah ayaa gaari BL ah BL ku waa gaariga matatuuda ah ka soo raacay gaari BL ah ka soo raacay KM4 asagoo ku sii jeeda xaafadda macmacaanka ee degmada Madiina gaariga oo buuxay dartiis ayuu odaygii gees ka qabsaday gaariga isagoo ul dhuuban oo uu watay kilkisha ku qabsaday kilkisha inta waay hadda garanayna waay lagu sharaxado baahanta kilkisha ku qabsaday nasiib xumo bakooradii ayaa aaday gabar hortiisa fadhiday tuudeeda lugood dhaxdooda gaar baa jirta war meeshaan waxa ka doonay ushu meesha maxay ka doontay yar nooc kale ahaydba okay labada lugood dhaxdooda gaarigii oo aad u cariiri ahaa iyo wadada uu marayay oo xumeyd ayaa sababtay in ushii aysan ku ekaan halkeedii oo ay meelo kale oo qaldan u sii dhaadhacdo gabadhii oo yaaban ayaa dulqaad badan muujisay balse ugu dambeyntii intuu ka dhamaaday bay ku tiri intuu dulqaadkii ka dhamaaday macnaha saas laga wadaa intuu dulqaadkii ka dhamaaday bay ku tiri adeer intaan ka badan intee u socotaa odaygii muxuu dhihi dalaarka oday fani waa ninka odaygii ayaa si kalsooni badan ay ku jirto ugu jawaabay gabadhii adeer meel dheer uma socdo ee macmacaanka ayaan u socdaa asagoo ka wado xaafadda macmacaanka warka oday si kalsooni leh yaa wuxuu ku yidhi meel dheer uma socdo waxaan u socdaa taagan yahay macmacaanka dee islamiin ogeyn macnaha ilaan islamiin ogeyn gabadhu laakiin macnaha waxay ku tiri xageed u socotaa macnaha mogt ushan macnaha xageed u wadaa yacni ay ka wadaa marka odayga waxaa la rabay dee odaygu muunsa fahmin markaas asagana si daacad ahayd yacni xageed u socotaa loo dhahay iyo u fahmay marka wuxuu yidhi dee macmacaankan u socdaa marka gabadhii naxdin waxay tiri horay ugu soco waxaad ka dheeftaad leedahay marka dee meel khaldan du taabto macnaha kab macnaha intii la sito odayga meesha waxaad ka dheeftaad leedahay haddii mar gabadh ku dhahdo bis waay halkaa ha u dhaafin halkaa haddaad u dhaafto way ku dhamaataan ku dhaha
marka dee yaa gabadh hadday ku dhahdo waxaad ka dheeftaad leedahay marka adiga waa lagu yaabaa. marka iska ilaali meelahaas camal yaa inta kale inaad wax fahantan way fiicanta intaadan dee aad meelo khaldan gelin oo kab iyo balaayay kugu dhacin. waxaa ila qum inaad horta marka hore wax fahanto marka dee soo reeb haddii lagu anaan iyadana iska ilaali. ereyga asagana waa kama dambays waay. waxaa isticmaalaa yaa reewaamaha isticmaala inta badan ayagana aan gala maanta soo reeb ayadana haddii lagu dhaho bes waay hala is ilaaliyo. weli sheekooyinkeennii ayaa noo socda aan ku guda jirnaa. marka sheekadan hadda ugu dambaysa insha allah aan kusoo gabagabeynayo waxay ku saabsan tahay xariif marqaane iyo xaaskiisa waxaa kala qabsada. macnaha habeenkii markii la sheekeysanayo yacni ama dantii guriga laga wada hadlayo yacni iyo ninka marqaanka xaaladiisa xilliga ku sugan yahay. marka dee haddii aad marqaantaniyaho ilaahay ku khayra ku siiya iska dhaaf wax fiican maahan sababtoo meelo aan caadi ahayn ku geenaya. marka waxaan rajeynayaa inaad iska dhaafi doonto insha allah. intaa markaan uga gudubno marka sheekadoodii bal aan u gudagalno. macnaha xaaska ayaa hadashay marka ugu horeysa waxayna tiri gabadheenna waa la uureeyey ninka marqaanka ayaday dhibay wallaahi waa gabadhiisa wuxuu leeyahay ayaday dhibaysaa wallaahi xaaska adiga ayaa u keenay dhibkaas dhan. kolley ma garanayo waxay oga wada adiga u keenay macnaha malaha haddii qeyr mas-uulaad noqotay oo gabadhi waad ogaan weyday miyay ka wadaa dabcan laga yaabo. bas marka ninka marqaanka wuxuu yidhi marka anay idhibay wallaahi anay idhibay wallaahi. marka baba ogaba meel ku sugan yahay macnaha geedu saaran yahay marka aniga idhibay wallaahi uu taagan yahay. haye xaaska maxay dhahday marka wax aan kaa aqbalayo maahan bay dhahday. yacni kaama yeelayo sidan qeyr mas-uulnimadan iyo inaad gabadhi celin weyday waxaan kaa yeelaya maaha xaafadan lamooda joogay camal waay waa furkay ku tursay. wuxuu dhahay marka ninka aday ku dhibay wallaahi haddana macnaha aday ku dhibay hadda aniga macnaha dhiish iga soo daba qaadatay macnaha aday ku dhibi waaye dad waxba iga aqbalayna xitaa aday ku dhibaysaa waay macnaha mala haddii shalle hawadu ku cun rabaa umalaynaa orkadaadii reerka. wuxuu dhahay marka haddana waxay dhahday marka xaaska waxay tiri marka dariska dhan annaga ayay naga hadlayaan. yacni gabadh maasha allah waaye waxay ka hadlaysaa xaaladda dee markaas haddii gabadhiini ay wax ku dhacaan dee xaafadaha dhan iyo dariska kuu sheekaysan soo maahan. marka waxay taagan tahaybo yacni dariska waa nugu sheekaysan sax waa iyada way saxan tahay laakiin ninkana eber ma joogo marqaansay hawadu jiraa. marka muxuu dhahay marka ninka marqaansana wuxuu yidhi ayakay dhibay wallaahi hadday naga hadlaan xitaa ayagay dhibi macnaha ninkan wax culays oo maxay hayday dee ay ku haysaba gabadhiisii dhibka soo gaaray iyo ceebta maarata wax dhiba ay ku haysa ma jiraba dee ma joogaba ninkan buuraha iyo geedahaas u saaran. marka dhibkaasay leedahay marqaanka. marka ninka runaatii waa cajab waaye dadkan asxaabul marqaanka dee waxaadan maaragtay dee inagu aan howlahanan bay ku jiraan. marka inaba caadi maahan waxaan rajeynaynaa in ayagana ay fiicnaan iska dhaafaan. marka sheekada intaasay ku eg tahay dee aad aan iiga qoslisay run ahaantii waan la cajabay runtii. idinkana sidoo kale waxaan rajeynayaa inaad maaragtay aad ka hesheen. marka dee haddaad nagu cusub tahay subscribe-ka noo saar haddii aad nala sii joogtayna waa mahadsan tahay. dee commentiga iyo like-ta iyo shaata hoosta noogu reeba dee dhiirigelin bay ii tahay macnaha. marka muuqaalkana dee ii shaagareeya meel kastood maaragtay aad gaadhsiin kartaan gaadhsiiya. dee isla socosho wanaagsan mar walba iyo waqti kastaba. khayr iyo ammaana idin laah.